iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta deegaanka adduunka isla markaana sanad waliba 5 bisha Juun laga xuso guud ahaan caalamka ayaa waxaa lagu qabtay maanta degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo ay iska kaashadeen hay'adaha Sirad iyo Turkiya. Ujeedka munaasabadan ayaa daarneyd sidii bulshada looga wacyigelin lahaa dhiraynta deegaanka, waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay madaxa arrimaha bulshada degmada Luuq Cabdicasiis Sugow Salaad, iskuduwaha wasaaradda beeraha Jubbaland ee degmada Luuq, gudoomiyaha ururka haweenka degmada, gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada iyo sidoo kale waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabadda kuwaas oo si wada jira u soo dhaweeyay barnaamijka dhiraynta deegaanka. waa maalin qiimo weyn, waa maalinka nabad guurka iyo deegaanka, maalinka deegaanka adduunka. waxaad dareemaysiin deegaan nabad ah, barwaaqo ah, bashbash ah inuu yahay deegaankeena ilaahayna ku maneeyay. nin walbana resource-ka iyo waxa laga soo saari kara iyo nabad guurka waxyaabaha u keen kara inaan ka tigtoonaadna mar walbana oo dalkeena iyo deegaankeena aan noqono dad ilaashado ajandaheeda iyo taladeeda iyo maskaxdeedana. waxaad dareemaysiin ururada bulshada ee degmada Luuq sida wanaagsan ay ugu heelan yihiin. waxaan rabnaa inaan noqono dad isku tashi leh. maxaan u soconaa marka 30 sano dambe? waxaan rabnaa geedaha aan maanta talaalna kolley dad baa gaari doona ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu deysto, dadna kolley dee ilaahay ma haleeshiin doono. wax walba waa dunidu. waxaad dareemaysid marka xalfadaha iyo qiimaha iyo aragtida. waxaad dareemaysid marka cimilada iyo climate change Soomaaliya waxay u geysatay iyo deegaankeena. runtii annagu waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. mashruucan iska kaashanayaan Turkiya iyo hay'adda la yiraahdo Sirad in badan lagu soo celceliyay wax badan waxaan umaynaa dadka hadda koow uma ahan. wax markasta laga hadlo waxaa waaye in dhirta la ilaaliyo. dhirta marka la ilaalinayna deegaanka iyo dadka iyo bulshada ayagaa laga rabaa inay ilaaliyaan. sababtoo ah deegaanka annagaa ilaahayna makaniyey, annagaa mas-uulka ah, annagu waxtar noo yahay in geed la beera, in kii hor usii jiray la ilaaliyo. intaba waxaa yeelaya macnaha wax deegaanka iyo bulshada looga hadlaayo mar walba loogu soo celcelinayo. intanada haddaan iskaashan wax baanaan qabanayna, laakiin hadduu nin walba uu meel ka baxa oo is yira adiga waxba kaama gelin, qole hebelay wax ka gashay, ururka haweenkay qusaysaa, degmada maamulkay qusaysaa, culumudiinka qof walba hadduu qof ku tilmaamo xogaa marka waxaa moodaa meesha inay talada ka baxayso. marka waxaa nagala rabaa inaan gacmaha isqabsana, barnaamijka asaga annaga aan u diyaar garowno, dadka bulshada aan wacyigelinno. awalan xafladan lagu maamuusayo ama maaragtay looga soo qayb galay maalintii dhiraynta adduunka ee deegaankeena aan deganahay hadeer. runtii farxad bay noo tahay in deegaankeena annaga hay'ado ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya Luuq sida Sirad iyo Turkiya ay nagu wacyigelinayaan ama ay nagu dhiirigelinayaan. deegaanka annaguna anfacaya hadday dhir tahay, hadday beero yihiin, sidii dhulkeena maaragtay ama deegaankeena uu ugu badbaadi lahaa nabad guurka iyo dhibaatooyinka iyo masiibooyinka dhaca uu ugu badbaadi lahaa. maanta oo ah maalinta Juun 5 bisha kuna aadan maalinka dabaaldega oo dhirta ama khayraadka deegaanka. muhiimadan ay tahay in la ilaaliyo waxyaabaha muhiimku ah deegaanada aan ku noolnahay sida maalinta dhiraynta. muhiimadda marka maanta dadkan meesha ugu kulmeen maadaama ay yihiin dadkii ku noolaa deegaanka degmada Luuq iyo nawaaxigeeda. muhiimaddu waxaa weeye in la ilaaliyo ama laga taxadiro deegaanka aan ku noolnahay dhirtiisa. aan la gurin sida mataqaanaa dhirta la ilaaliyo dhuxul iyo waxyaabo mataqaanaa aan loo joogin dadka inta la geesho la guro meeshii bannaan noqoto. marka muhiimadda maanta aan soo nimaan waxaa weeye in la ilaaliyo deegaanka iyo dhirta. waana mahadsan tahay hay'addii soo qaban qaabisay. maanta waxaa laga hadlayaa waxa loo yaqaan carabiga almuxaafada cala albay'a, ilaalinta deegaanka ayaa laga hadlayaa. qur-aanka wuxuu ka sheekeeyey ilaalinta markaasi deegaanka, wuxuuna ka dhigay ilaalintaasi waajib diini ah. in la ilaaliyo dhulka bay'ada ama deegaanka in la ilaaliyo ama environmentiga waxa loo yaqaan in la ilaaliyo, islaamka wuxuu ka dhigay arrin waajib uu ka dhigay. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu amar ku bixiyey in lala tacaamulo deegaanka, in lala tacaamulo, in loola tacaamulo waxaa loola dhaqmayaa dhulka
calaa annahaa mulkiyatun caama inay tahay mulkiyad guud inay tahay dadka dhan baa leh qof kasta oo meeshaan fadhiyo dhulkaanuu ku nool yahay dhulkaanuu leeyahay waa ina ula tacaamushid sida alaabta gurigaaga taallo oo kale aniga waxaan ahaan jiray dadka miyiga kusoo koro kusoo weynaadaan ahaan jiray dadkan hadda wiilashaan dhalinyarada oo noo sheegaya dhirta noo tilmaamaya bowgii qalin bay iga qaateen wax loogu sheegay annaga nacfigeeda weyn baan naqaanaa xoolaha daaqidooda iyo muxuu ahay harsigooda iyo noloshooda dhan baan naqaanaa meesha hadda mar dhow waxaan arki jirnay ayadoo ugaarta ay daaqayso oo eelada iyo wax garnuugta iyo adduunyo wax saan iyo baayinka geelaan aysan yihiin hadda maandhowda marina aniga ninkaani asraacnoo tagnayoo xaalkeeda ilaahay baa ogaa waxaan soo jeedinayaa inaan gurmano oon isugu tagna oon dhirta beerna tan duurka jirtana dadkeeni baa jire oo meel kale kamaana maalin deegaanka luuq baan nahay ayadana waxaan soo jeedinayaa dadka duurka jira guwaabino oo xataa haddaan awoodno aan dad u dirno gabagabadii xafladda ayaa waxaa la guddoonsiiyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadda geeda loogu talagalay in lagu dhireeyo deegaanka kuwaasi oo ay guddoonsiisay hay-adda sirad maxamed kaaf aadan bishaar kaaf UK warbaahinta Jubbaland degmada Luuq